nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waxaa ka mid ah wuxuu nabigu leeyahay alaaun uqsimu calayhin saddex waan ku dhaaranaya xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya saddexdu ku dhaaranaya nebigu waa maxay xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahay xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisa oo la dhigto walaa dalama cabdun madlama walaa dulima cabdun madlamatan sabara calayha lama dulmiyo addoonna oo dulmigaa kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato ilaa zaadahu allahu ciza ilaa iyo cafigaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf qofna albaabka mas'alada ma fura buu nebigu leeyahay ilaa iyo baab faqri baa loo furaa waxisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya baryadu ma fiicna saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay walaa fataxa cabdun baaba mas'ala qof ma furo albaabka baryada ilaa iyo ilaahayna albaabka faqrigu uu furaa hal shayna waan idiin sheegayaa qayba buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maxay adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahay afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fa huwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigii buu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanayaa kaasi aakhiro afdalulmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahay meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah xadiidka maxallu shaahidkun baynu ka soo qaadannay waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayey wakhtigii islaamka ka horreeye la samaynayey oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynaya uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhisa nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaalguday maaha buu nebigu yidhi ninka abaalguday dee tolka markaa isku fiicantiina iyanay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiinoo wax istartaan dee waad abaalgudday markaa wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi' baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalaha buu nebigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثatulifki markay dhacday dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaanullaahi calayha ee abibakar ayaa wuu dhaartay wuxuu ka dhaaranaya nimankan warka rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey laakiin dadka badh baa jira
warka aan hubina iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkiioo faafiyey iyana waxaa ka mid ah xasan ibnu thaabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta mistax ibnu athaath waxaa ka mid ah xamna waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay mistax ibnu athaath ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga markaa abibakar qaraabanimo iyo tolliimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila abibakar baa wuxuu biilaa mistaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin abibakar arrintiibuu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin waan ku dilayaa iyo wax baan samaynaya kale abibakar ma leh bes wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyay wax damba ku siin maayo ilaahay baa qur'aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilahay alaa tuxibbuuna an yakfira allahu lakum walyacfuu walyasfaxuu ilahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinba baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala in ilaahay dembigiinna dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo mistax uu dhibta tan gaystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxibba waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii atharihi falyasil raximah ama man axabba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii atharihi falyasil raximah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahy ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii min asbaab lagu ballaadhiyo qofka arsaaqda ilaahay ugu ballaadhiyo waxaa ka mid ah inaad qaraabada xidhiidhiso inaad kahanin marka wax lagu weyddiiyo waxaa ka mid ah waxyaabaha ilaahay cimriga ku dheereeyo amase ku barakeeyo xidhiidhinta qaraabada buu nebigu leeyay alayh salatu wasalam saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay ninkii jecel in ilaahay arsaaqdana u ballaadhiyo cimrigana u dheereeyow qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam haddaba ayuha alaxibba axaadiista nebiga ka asaxday waxaa ka mid ah man kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir falyukrim dayfah waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhir فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فلا يؤذي جاره لبدا الروايات بس صحيح كصارون نبي حليه عليه الصلاة والسلام نكي إلهي إيا مالنت قيام الرميسنو مرتد الصور نكي إلهي إيا مالنت قيام الرميسنو شارك حدبه ولو قال لها هذا ninkii ilaahay iyo maalinta qiyaamaba rumaysanow ama khayrku hadal ama iska aamo wuxuu kaloo nebigu leeyay waman kaana yuuminu biاllahi walyowmi alaakhiri falyasil raxima ninkii ilaahay iyo rasuulba rumaysanow war qaraabadaada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ilaah iyo rasuul haddaad rumaysan tahay qaraabada xidhiidhi buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu tilmaamayo inay yihiin dadka u mudan ee sadaqa la siiyo markaad wax bixinayso dadka ugu mudan ee wax la siiya inay iyaga yihiin waxaa dhacday maymuuna bintulxaaris haweenaydii la odhan jiro oo ka mid ah haweenkii uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam axaadiistan inta badan saxiixaynka ku soo aroray aan akhrinayaa ayaa gabadh yaroo weliidah gabadh yaroo ay haysatay oo addoon yar u ahayd ayay xoraysay dabeetana waa iyadaa nebigu la joogin calayhi salaatu wasalaam tooggadeedii markuu nebigu guriga wakhtigeedii uu yimi ayay u sheegtay
waxay tidhi waa sii daayey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low acطaytiha akhwaaliki kaana acdama liajriki haddaad siin lahayd buu yidhi abtiyada ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam abtiyada haddaad ku sadaqaadaysan lahayd oo siin lahayd ayaa kuu sii ajar badnaan lahayd idan ama abti ha noqdo ama xataa reerka laftiisa ha noqdo xaaskaaga ha noqdo ama islaanta odaygeeda ha noqoto maalan zaynab gabadhii la odhan jiray oo ah cabdillaahi binu mascuud xaaskiisii ayaa waxay leedahay nebigaan maqlayoo nugu leh tasaddaqna yaa macshara annisaa'i walow min xulyikun haweenow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha noqdaane haweenkow wax sadaqadaysta dahabkaa xidhantiinna ha ahaata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadhaasaa markaa waxay tidhi markaan xadiidkaa nebiga maqlay calayhi salaatu wasalaam ayaan u imi bay tidhi odaygeedii cabdillaahi ibnu mascuud oo odaygeedii bay u timi dabeetana waxay tidhi waar cabdillaahow adiguba faqiir baad nin khafiifu daati ilyad nin waxayste ma tihid ee orod nebiga u tag calayhi salaatu wasalaam wuxuuna faray sadaqee waxaad soo weyddiisaa war adiga ma kugu baxaysa aan ku siiya bay leedahay waa odaygeedii laakiin waxay leedahay adba caydh baad too wax ma haysa islaantaa wax haysata hanti leh laakiin cabdillaahi ibnu mascuud waxba ma haysto nebiguna dumarkuu la hadla wuxuu idhi wax sadaqadaysta dabeetana waxay ku leedahay odaygii war adba faqiir baad too waxba ma haysatide orod u tag nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad soo weyddiisaa ma kugu baxaysaa haddaan adiga ku siiyo cabdillaaha wuxuu yidhi markaa maya anuu nebiga u tegi maayo orod adugu u tagoo soo weyddiiso anuu nebiga u tegi maayee adugu u tagoo soo weydii buu ku yidhi waxay tidhi markaasaan soo baxay dhexda markaan socdaba waxay igu soo baxday bay tidhi gabadh kaloo ansaara oo iyana masaladaydiioo kala wadata iyana rabta inay nebiga weyddiiso ninka haddii wax la siiyo ma ku baxaysaadaa labadii dumara baa isa soo raacay gurigii nebiga yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markay gurigii nebiga yimaadeenna waxay leeyihiin nebiga aad buu haybad u weynaa markaa waa laga cabsan jiray waannu ka cabsanaynay bay tidhi dabeetana bilaal baa noo soo baxay bay tidhi bilaal baa waxaannu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam faahbirhu anna imra'atayni bilbaabi tasalaanik nebiga u tagoo waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi allow waxay ku weyddiinayaan odayadayada wax ma ku sadaqadaysan karnaa sidaa bilaalow nebiga ku dhaba yidhaahdeen iyo agoon yaroo aannu haysanno waa calaa aytaamin fii xujuurina odayadayada iyo agoon gurigayaga joogtaa wax ma ku sadaqadaysan karnaa oo ha noo sheegin bay yidhaahdeen kuwaannu nahayna bilaal bay leeyihin hanana sheegin su'aashaana nebiga noo soo weyddiiyey bilaal baa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su'aashii buu weyddiiyey nebigaa markaa su'aalku soo celiyey wuxuu uhi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su'aasha ku soo weyddiiyey waa kuwama bilaal dee hadduu nebigu weyddiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadha ansaariyada iyo saynab buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabbadu waa badan yihiine markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi ibnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi ibnu mascuud qabay weeye markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru alqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihin yacni ajarka qaraabada waa maxay waa silatu rixim qaraaba xidhiidhinna waa idiin tahay sadaqana waa idiin tahay buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuha alaxibba xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min addiin bale cabdillaahi ibnu nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay cabdilmuطalib ibnu rabiica ibnu alxaaris ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay rabiicata bnu alxaaris waa rabiicata bnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer iyo alcabaas ibnu cabdilmuطalib oo adeerkiiya labada nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay dabeetana waxay yidhaahdeen
war labadaa wiil waa laba wiiloo ay dhaleen labadaa wiil intaynu isku darna inuu nebiga u diro oo aynu kala hadalno waxaynu ku odhanaynaa sakooyinkan iyo sadaqaadkan la soo ururiyo dadka ka shaqeeya ilaahay rasuulkiisiiyo ku dar ha shaqeeyaan oo dadkuba dee shaqada waxbay ku qaadanayaane wixii ay dadkuba qaadanayeen iyana ha qaataan warkaa iyagoo wadabo caliy ibnu abi taalib waa isla qoyskiisna ayaa u yimi markaasay u sheegeen wixii ay wadeen cali wuxuu yidhi war ka daaya war nebiga waxaa hawla tegina cali way ka cadhoodeene waxay dhaaheen war laga tagarado markii adiga nebigu inantiisa ku siiye ku soo dhoweeyey baad cali waxaa la yidhi adiga ku maqli mayno waa diraynaa labada inan adiga markii uu nebigu kuu guuriyaad leedahay kuwan loo guurin maayo waa laba wiilo ay dhaleen bay rabeen in nebi maxamed u guuriyo dabeetana waa soo direen markii ay diideen cali wuxuu ku yidhi haddaba labadooda dira idinku ha raacine labada yaryarun ha u tagaan nebigu waxa weydiistaan idinku ka hadha labadiinna nina waaweyn labadii yararraa baa la soo diray markii salaaddii duhur la tukaday ayaannu albaabka uga dheeraynay bay yidhahdeen nebiga u sii fadhiisan markii uu albaabka noogu yimi annagoo fadhfadhinuu dhagaanna qabtay bay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa akhrija ma tusarriraan waxaa qarsanaysaan ii sheega buu yidhi soo saara wixii aa qarsanayseen waxbaa meesha la fadhidaane sheega buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuuna soo kaxeeyo guriguuna geeyey buu yidhi wuxuu maalintaa joogay bay leeyihin gurigii zaynab bintu jaxash haweenkii nebiga haweenay ka mid ah hadalkii baannu isku riixriixnay buu yidhi war adugu hadal iyo adugu hadal labadayadii markii dambe midkood baa hadlay waxay nebiga ku yidhahdeen anta abarru nnaasi wa awsalu nnaas dadka adaa u samafal badan oo u xidhiidhin badan dee annaguna rag waaweyn oo qaan gaadhay baannu nahay dee waxaannu kuugu nimi inaad xoolaha sadaqada inaad walcaamiliina calayh haddii dee naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dartid oo dee dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aannu ku hello dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay in doora markuu aamusnaa ayuu wuxuu yidhi ninka xadiiskii warinaya wuxuu leeyay zaynab oo xagga dambe fadhida ayaa noo gacan haadinaysoo le war aamusa halla haddina ku celinina hadalka nebigu markaasuu la hadlo wuxuu yidhi ina asadaqa laa tanbagii liaali muxamed innamaa hiya awsaakhu nnaas waar sakadu reer nebi maxamed uma cuntanta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacnii aalu beytka nebiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nebigu leeyahay aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuwaa liya maxmiya nin maxmiyo la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayey yacnii nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyay shan dalooloo dalool ninkii khumuskaa mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhahaa nawfal ibnualxaaris ibnu cabdilmutalib labadaa igu yeedha buu yidhi labadii baa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiil mid waa alfadal ibnu cabbaas oo cabdillahi ibnu cabbaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri nawfal ibnualxaaris ibnu cabdilmutalibna wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuriya yacnii labadii nina uu u yeedhay laba hawloodoo ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahy labadan inan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahae xoolaha fayga ee aad hayso astiqacnuhumaa min alkhumus kada wa kada wa kada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka sii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u deliishanayaan culammadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayey inuu xataa u guurinayey oo u geed fadhiisanayey oo ka bixinayey wixii kharasha ku baxayeyna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayey haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiyaa koow waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeedba ay ammaanta u taqaanay diintuna sugtay
إلهي سبحانه وتعالى وصغيه قرآن آد وبضانين وآتي ذا القربى حقه ميداني ذا القربى هين إحسان الله سميانا وصاء أروري نصوص تربض النبي عليه الصلاة والسلام وكساء أرورتا إنه إنتان كساء قادنا نصوص تاسي وشيغيسا عهدي مكة يا عهدي مدينة بين النبي ومسألة كهدي نصوص تاسي وشيغيسا إن إلهي وكبرك يدتك فعل كان سمايا نصوص تاسي وشيغيسا أرزاق ده iyo guurku arsaaqda iyo da'duba cimriguba in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeyo idan waxaynu leenahay markaa islaamku wuxuu farayaa dadku bulshadu inay isku xidhnaato dawaa'ir kala dambaysana way isugu xidhantahay daa'ira aluula naftaada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidiinta waxaa ku sii xiga markaasi qaraabadii waxaa ku sii xiga jaarkii waxaa ku sii xiga masaakiintii iyo agoontii iyo dadkii kale ducafaalu mujtamac waxaa ku sii xiga bulshada dhammaanteed waxaa ku xiga almukhaalifiin kuwa xataa diin ahaan aydan isku waafaqsanayn xidhiidhkaa loo samaynayana waa xidhiidh kelima tayiba waa sadaqa taladu waa sadaqa dulmigu aad ka joojisaa waa sadaqa maalku aad siisaa waa sadaqa yacni waxa laaliya wuxuu nebigu sadaqa ku sheegay oo dhammi waxay geli karaan inay noqdaan maxay silatu raxim haddaba westranka markaynu taagannay dadku maxay u shaqaysan waayeen iyo waa private dadku inay shaqaystaan waa lagula taliyaa laakiin laguma qadiyo inuu shaqaysto waa wax lagula taliyo wanaagsan laakiin wax lagu qadiyo maaha waa in la taageeraa wax la siiyaa sala allahuma calaa muxammadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin